haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ileen wax ma dhaantid geed. Assalaamu calaykum, aniga waa Abaal Waasuge. Nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaas as-sixatu wal-faraaq. laba nimco dadka intooda badani way ku kadsoon yihiin, waa caafimaadka iyo firaaqada. sidoo kale Yaxya bin Hubayr waxa uu leeyahay alwaqtu anfusu ma cunita bixifdihi wa araahu ashala ma calayka yadiicu. waqtiga waa kan u qaalisan inta lagu faray ilaalintiisa, ha yeeshee waxaa muuqata inuu yahay wax la dayaco agtaada kan u sahlan. Allah u naxariistay Maxamed Xaashi Damac waxa uu leeyahay haddaan guga kuu kordhaa gabow mooyee ku tarin garaad iyo waaye arag ileen wax ma dhaantid geed. dabcan gu halkan ma aha macnaheeda haddii sanadka kuu kordha ee waa haddii maalinta kuu korortaa bal saacadda kuu korortaa aysan kuu dhoweyn rabbigaa macnana ku tarin oo ku anfaca adduunkaaga iyo aakhiradaada, waxaa khatar ugu jirtaa inaad wax badan ka sukayn weyso geedka. Xasan al-Basri waxa uu leeyahay yabna aadam innamaa anta ayaam. ina aadanu waxaa tahay maalmo isku tegay, haddii ay baxdo maalin ka mida maalmahaasna waxaa baxay qayb adiga ka mida. sidoo kale Cumar ibn Cabdilcasiis raximahullah waxa uu leeyahay al-laylu wan-nahaaru yacmalaani fiika facmal fiihima. habeenka iyo maalintu way kaa shaqaysan ay ka shaqayso, dabcan ku camal fal oo samayso camalku anfaca adduunyadaada iyo aakhiradaadaba. ha yeeshee saaxiib yaal, weli waqti inagama tegin oo daalama aan nool nahay oo aan neefsanayn waxaanu haysanaa fursad taas oo aan wax kaga bedeli karno nolosheenna. waqtiga waxaa loo qeybiyaa 3: maalin tagtay, maalin dhiman iyo maalinta hadda joogta. dabcan maalinta tagtay uma taaghayno, waxna kama bedeli karno. tan dhimansa ma ogin inay iman doonto inagoo joogna iyo inagoo dhulka ka hooseyna. maalinta aan nool nahayna dhammaanteed ma wada lihin oo ma ogin saacadaha ina soo aadan iyo waxaan mudan doono, ha yeeshee waxaan haysanaa laxadaad iyo nafaska yar ee aan nool nahay. sidaa awgeed Soomaalida iyadoo cabiraysa arrinkaa waxay tidhaahdaa saban tagay mid weli soo socda iyo saakay waxa jooga, saddexdaa xaal baa adduun lagu sifeeyaa. soo noqod ma jiro shalay, wixii saatifow tagay, wixii saa dambeetiyo berri waa su'aal dhimane, waxay taladu kuu suuban tahay subaxaad joogtahay. waa run, waxay talada kuu suuban tahay subaxda aan nooshahay, taas oo aad wax badan go'aan qaadan kartid kana bedeli kartid noloshaada. Allah u naxariistay Cabdi Iidaan ayaa isagoo xabsi ku jira dhanka kalena lug ka jaban waxaa u soo galay askari doonayay inuu ku jeesjeeso. markaas ayuu weydiiyey bal xaalkiisa iyo sida uu maanta dareemayo. Cabdi Iidaan ayaa ku jawaabay erayo mudan in lagu qoro biyo dahab ah, waxaana ka mid ahaa intaan wehelma doontii la tegin walaxi ii noole, maantana maxaa iiga wacan waagu ii bariye. yacni intaan qabrigii la tegin oo aanan dhiman askariyo waxbaa ii nool, maantana maxaa iiga wacan waagu ii bariye. maantana wax iiga fiican ma laha kol hadduu waagu ii baryay oo aan awoodo inaan rabbigay xuso oo aan cibaadaysto. hana moodin inaad xurriyadda iga qaaday inay ka dhigan tahay inaad qalbigayga qaadatay oo waqtigayga ay la maamushid. dabcan saaxiibayaal, markaa u fiiristay dhaqankii hore iyo dadkii wanaagsanaayay saalixiinta iyo sidai waqtiga kaga faa'iideysan jireen, waxaad dareemaysaa in dayac badan uu jiro iminka. dad badan oo maanta noolna ay yihiin kuwa aan waxba ka ogeyn qiimaha waqtiga. masalan ibn Caqiil al-Xambali Allah u naxariistee waxa uu leeyahay innii laa yaxillu lii, iima sugnaanin inaan dayaco saacatan min cumri, yacni saacad ka mida cumrigayga. haddii carabkaygu ka daalo dood cilmiyeedyada iyo aqrinta, indhahayguna ka daalaan mudaalacada iyo fiirfiirinta kutubta, xilliga aan istareexayo ayaan kaga faa'iidaystaa fakir, mana soo tooso ilaa waxaa igu soo dhaca fikrad aan la wadaagi karo jiilka dambe ee muslimiinta. dabcan Imaam Dahabi waxa uu leeyahay ibn Caqiil waxa uu qoray akbar kitaab fil caalam, kaasoo aan hortiina la qorin gadaashiina la qorin. kitaabka ibn Caqiil ee qoray ee Al-Funuun waxa uu ka kooban yahay sida la sheego 800 oo majalad. sidoo kale Caamir bin Qays ayaa waxa uu ka mid ahaa dadka cajiibka ku ahaa ka faa'iideysiga waqtiga. waxaa la wariyaa inuu biri u yimid asagoo ku mashquulsan danihiisa gaarka ah nin ka mid ah dadkii la noolaa, kuna yidhi yaa Caamir tacaal ukallimuk, Caamir oo kaale aan kula hadle. kolkaas ayuu ku yidhi jooji qoraxda si aan kula hadlo, yacni ii istaaji waqtiga si aan adiga jaanis kuu siiyo, maxaa yeelay waxaan ahay qof waqtiga tartan kula jira, mana awoodo inaan dayaco waqtigayga si aan adiga kula sheekaysto. ugu dambeyn saaxiibayaal, nafteyda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa inaan garanno qiimaha waqtiga kana faa'iideysano ka hor intaysan noo iman shalayti. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay yacni ibni aadanka kama suulo
maalinta qiyaamo meesha uu taagan yahay ilaa laga weydiiyo 4. waxaa ka mid a 4 cumrigiisa iyo meesha uu ku bixiyey. sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna dardaarmayaa inaan 5 ka faa'iidaysano 5 ka hor. 5 waxaa ka mid a 2 shay oo cilaaqad toos la leh waqtiga cumrigaaga ka hor, yacni noloshaada ka hor geeridaada. sidoo kale ka faa'iidayso dhalinyaronimadaada ka hor gabowgaaga. waxaa muuqata in dhalinyaronimada ay tahay qayb ka mid a cumriga, ha yeeshee wuxuu nabiga u qaaseelo waa liahmiyatiha, iyo inay tahay dhalinyaronimada waqtiga u wacan ee qofka uu cibaadaysan karo iyo waqtiga u wacan uu qofka shaqaysan karo wax anfaca adduunyadiisa. sidaa darteed saaxiibayaal, ugu dambeyn yaynaan noqon qofkii uu cumar ka digay ee ahaa sabahlal, kaasoo aanan ahayn mar kasta camal anfaca adduunyadiisa ama aakhiradiisa. aniga waa walaalkiin Abaal Waasugo idinle sida iyo nabadgelyo nabadin nolol kulantii amaana Allah. dabcan saaxiib, haddii aad ku cusub tahay janaalka, waxaan kuu soo jeedin inaad tiraahdo subscribe si ay kuu soo gaarto xalqad kasta. sidoo kale haddii aad xalqadan ka heshay, fadlan like saar, lana wadaag saaxiibada oo share dheh. Assalaamu calaykum.